السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جو أحمد أحمد آدم النمو. سيدا أختي waxaan ka mid ahay wariyaashayda hadda Voice of Oslo. waxaan ahay barnaamij saare iyo weli waxaan ahay wariyayda hadda Voice of Oslo. sidoo kale waxaan ahay rasmiyada hadda Voice of Oslo. idaacaddan Voice of Oslo muddo badan ayay hawada ku jirtay sida ogtiinba 13 sano ayay la hadlaysay bulshada Soomaaliyeed Norway degan. barnaamijyo badan ayaan sii deynay oo kamid ah barnaamijka anshaxa saxaafadda oo aan ku wareysanay dad kala duwan haddii ahaan lahayd dad sawirada qaada haddii ahaan lahayd dad barnaamijyada gaar ah sameeyo iyo weliba waxaan wareysanay dad iyaga rubcadaha ayaan wareysanay. barnaamijkaasna kulley websitekeena voice of Oslo kuma laga helayaa isagoo markaasi 7 barnaamij ahaa oo runtii barnaamijyadaasi waxyaalo badan ayaan uga hadalnay anshaxa bal waxaan isku istaageynaa inkastoo waqti dambe ay tahay oo hadda ay saacad ay ku dhowdahay wadankan 1:05 daqiiqo ay ku dhowdahay waa xilli dambe weeye. marka bal waxay noqotay bal inaan wax isla wadaasano maadaama dadku hadda wariyaasha madaxa banaan ay u badan yihiin social media oo cidday rabaan wareystaan oo ay dhibaato ku tahay shacabka Soomaaliyeed kuwa gudaha jooga iyo kuwa banaanka jooga. marka anshax ayaa isla fiirinaa marka hore kadibna waxaan isla fiirinaa qofka wariyaha ah markaasi madaxa banaan waxyaalaha uu soo xigin karo. tusaale ahaan wax walba waxaa loo tusaale loo qataa aniga saxaafadda dalkan Norway ku bartay. haddii aan arko qof meel yaalo kale oo aan arko in aan hubo inuu qofkaas dhintay sawir kama qaadi karo video kama qaadi karo dad kalena uma sheegi karo ma dhihi karo halkan meed baa yaalo dad shacaba uma sheegi karo oo telefoon aan diro ma dhihi karo halkan goobtaasi xilligaasi waqtigaasi nin meed baa halkaasi lama dhihi karo. waxaa keliya ila gudboon keliya 2 arrimood. ta koowaad oo ah inaan booliska waco oo aan wargeliyo iyo in aniga naftayda aan la dhaho ma nooshahay oo luqad wadanka kula hadlo oo aan u dhawaado oo aan qeyliyo oo aan dhaho ma nooshahay waxa weeye qayb ka mid ah dadka macna maxay wadankan jooga la baro weeye. markaan hubsado qofkaas uu dhintay markaas ayaan waxaan fiirinayaa wajigiisa iyo qaabku iyo waxaan iyo goobta uu joogay adres waxa ii dhow ama meelaha aan joogo ayaan fiirinaya haday meel duur tahay iyo haday meel adres ii dhow meesha ugu dhow ayaan boolis u sheegayaa. haddii ay tahay meel duur ah oo aad boolis wacdina boolis waxa uu soo raacayaa moobilka aad ka wacday signaalkiisa ay soo raacayaan oo hadda moobilo casri baa la haystaa marka oo qofka uu hataa booliska hataa halkaasi kala socon karo markaasi qofkaas dhintay ama qofkaasi caawinta u baahan asaas ku caawiyo iyo inaan isaga tago goobta. waan arkay waan ka tegay sababtoo ah culays ma saarna shaqo markaasi saxaafadda kuma jirin laakiin waxaan dhahaa qof macnaa maxay soo baxay oo u soo baxay in waqtigiisu banaan ku qaato. marka wariyaashana labaan ugu yaqaana markii hadlayaa in xaqiiqada runta ay soo gudbiyaan inta kalena inay aamusnaadaan. warbixino badan oo aan soo qoray oo aad ku aragteen kulley aan u bixiyey markhaatiga aamusan oo aragteen kulley oo aan waxyaalo badan aan isma bandhigaya ama aan ku tusaalinayay dadkan aan dhahayay bal wax una ka bartaan casharadaasi ayaa kamid ahayd casharada markaasi aan kusoo qaadanayay markhaatiga aamusan. marka 2 arrimood qofka ayaa la gudboon waxaa kaloo la gudboon wadankan Norway qisooyin badan baa ka dhacay aan tusaale soo qaadan karo. waa ka xumahay in wadan nabad ah oo macna maxay oo intaasoo 200 iyo ka badan nabad ah jirtay oo markaasi qori isugu dhibay ahayd nabadooda inaan tusaale soo qaato wadan macna maxay nidaam iyo dimuqraadiyad iyo kala dambeyn aan lahayn inaan soo qaato waa ka xumahay. Soomaaliya iyo Norway markaas soo bardhigo markasto qofka sida ogtiinba waalidka ma la dhicin karo cunuga wuxuu yahay marka qofna ma la dhicin karo wadanka wuxuu yahay ma la dhicin karo laakiin marka wax wada isbar bardhigayo waxa fiican sheega xun iyo sheega xun la soo qaato ama kan fiican la soo qaato la isbar bardhigo kadib halkooda la sheego. dalka Norway 2011 nin Norwegian dadlaayay saa ogtiinba warbaahinta caalamka meel walba uu socdaa weliba ninkaas markii soo qabtay 2 sano ay socotay maxkamadiisa asagoo markaas la weydiinayay meeshuu ka keenay cidda ku caawisay cidda la socotay meel uu soo bartay waxyaalo uu aaminsan yahay waxyaalahaas la weydiin jiray ilaa markii dambe markii arrintan xalka ninkii la ogaado wuxuu yahay kadibna maxkamadeeyay kadibna lagu xukumay 18 sano xarig ah oo weliba loo sii diri karo maadaama wadanka Norway ay mamnuuc ka tahay in qofka
forever ama boqol sano ama ka badan xabsi uu galo ay mamnuuc tahay. laakiin 18 sano galaya xabsi markuu soo baxo dhamaysto haddana 18 qanaad loogu darayaa. marka waa cimriga ku furto waaye laakiin waa daboon waaye. marka ninkaasi dadka laayay meedkaasi arkayseen wax sawir lagama qaadin, wax video lagama qaadin. wariyaashii madaxa banaanaa qof yacni soo tabiyey ma jirto. bulshadii dhan kulli waxaa la hoos tagay hal idaacada la hoos tagay iyo hal tv la hoos tagay. tv-ga dowladda iyo idaacadda dowladda la hoos tagay. oo marka xataa tv-da private-ka sida tv2 iyo tv-yada kale wararka soo gudbiyo iyo waxay ka qaadanayeen wararka saxda ah tv-ga dowladda oo loo yaqaan NRK loo yaqaan iyo NRK battery raadiga ah ayay ka qaadanayeen warbixinada markaasi ka socday 2021 haddii ahayd xaq maxkamadeynta iyo haddii ahayd dhibaatadii ninkan uu geystay dadka dhalinyarada ku laayay jasiiradii la oran jiray Utøya. marka maanta bal aan dalkeena aan barbar dhigno waxaa arkaysaa qof dhintay oo meyd ah oo maqaasi sawirkiisa meel kasta la wareejinayo, hadday tahay Facebook, hadday tahay Instagram, hadday tahay YouTube-ka, haddii ay tahay maxay ahayd Facebook-ka, meel walba la wareejinayo, xataa wargeysadii xataa iyo website-yada xataa la soo gelinayo. marka ma fiicna mana banaana sababtoo ah anshax wuxuu sheegayaa in sawirada noocaas ama la qariyo sababtoo ah waxaa laga qarinaya waxaa weeye carruurta yar inaysan arkin. waxaa kaloo laga qarinaya waxaa weeye dumarka u dhigan nugul in macnaa maxay ay dhibaato hor leh ay u gaarsiin karto in laga qariyo ama ehelkiisa iyo qaraabadiisa in laga qariyo weeye. taas waa loogu talagalay marka si bulshada aysan u arkin qof dhintay ama qof meyd ah aysan u arkin. taas weeye. midda kale dalka Soomaaliya caawa in la hadlaayo xaafad ama degmada Kaxda ayaa kuwa al-shabaab isku qarxiyeen way qabsadeen. dadka marka Facebook-da soo galaya dadka wareysanaya laba talaga siin lahaa. talada ku siinaya waxaa weeye wax aadan hubin qof aadan adiga macnaa maxay aad ogaansho ka helin berito yani maxkamad lagu soo taagin. iska ilaali wari madax banaan ahay iyo maxay inaan goob tagaan loo diiday inaan wax sadba loo diiday iyo inaan shirarka holka inaan galnaa loo diiday iyo aniga barnaamij noori ma geli karo. qaarka saxaafadda ma haystaa waa inaan codsadaa, waa inaan nidaamka raacaa, waa inaan macnaa maxay ahayd sii codsadaa, waa inaan dhahaa aniga idaacad ka socdo xillaas imaan karaa si ay iyaga dadku usii ogaadaan iyo booska aan fariisan lahaa iyo meeshii aan geli lahaa iyo baa geli la sii diyaariyo. waa si galaya baarlamaanka noogu saddex galaya kursiga ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka dhaqaalaha iyo wasiirka maaliyadda iyo kan gaashaandhigga aan fadhiisanaya ma soconayso. wax soconaya maahan, wax caqliga diidaya way runta idiin sheego. marka wariyaasha madax banaan waxaan kula talin lahaa waxaa weeye fadlan dadkan aad wareysanaysaan ee aad taleefanadooda ku raadinaysaan oo haddaad saaxiibo tihiin nin macnaa maxay sarkaal ah oo ama nin askari ah ama nin macnaa maxay madax ah ama nin guddoomiye ah ama nin guddoomiye degmada wuxuu ahaado haddaad saaxiibtiin istaqaanin in markii wax dhacayna waxayd oo aad cod ka duubtid oo isaga uusan raalli ka ahayn ayartay dambi kale waaye. weliba sharciga caalami wuxuu dhigahayaa qofkaasi in lasoo qaban karo oo weliba waxyaala waxaa la yaqaan baa jira dhahay Interpol oo markaasi qofka haddii lagu dacweeyo meeshuu jooga lasoo qaban karo. dad badan lasoo qabtay oo weliba wax kamadeeyey, qaarkood dambigii lagu waayey, qaar kale la cafiyey, qaarna macnaa maxay ahayd la xiray. saa ogtiinba halis weeye. marka waxaan ka digahayaa wariyaasha madaxa banaan iska socda horeygaa u socdo ama dhahaya waxaan kasoo warramay rabnay meel ay ka socoto doorasho baarlamaan ama nin la dooranaya rabnaa wareysan la diiday waxaas iyo boorkan tagay oo maxay ahayd inaan warbixin ka duwan loo diiday waxaas wax soconaya ma ahan. ha looga dambeeyo wargeyska ama raadiyaha afka dowladda ku hadlaa looga dambeeyo. waa ka soo xigin kartaa bana markaan qoraya warbixinta markaan qoraya maxaa cusub markaan qoraya aniga oo aan qoro warbixinta haddaan turjumo aniga meesha kasoo xigtaan qoraa. haddaanan qorin berika maana ka daawanaya dacweyn karo. marka halistaas ay leedahay waqti dambe waaye. way dhibaysaa in dad Soomaaliyeed oo Soomaali ah oo walaalkii ah oo isku wada raxnay isku afku hadleena in isagoo markaasi hurda dad qarax loo geysto ama la dilo ama wadarkiisa laga barakiciyo aad bay dhibaysaa. anigu joogo wadan nabad ah Norway ah ma dhahayo Norwegian ma dhahayo laakiin Soomaali baan ahay. qofka Soomaaliya joogo iyo kan waddanka kale joogo iyo kan meel kasta joogo Soomaali baan ahay. marka wadamada Yurub imaado
qofna kuma weydiinaya qabiilkaaga cadaanka markaas dhibaysan markuu dhahayo laakiin waxay ku dhahayaan halkee ka timid where are you came from halkee ka timid adiga wadankee u dhalatay nationalism ka haystaa intee u dhalatay maxay kasoo jeedaa waxaasa lagu weydiinayaa laakiin cidna kuma weydiinayso qabiilkee tahay haddaa intuu istaaqdo qabiilkaasaan ahay dhaho waxaa leeyahay what are you talking about maxaa waxa kaa daysid marka dadku waa inay baraarugaan shacabkana talaan siinhayaa fadlan dadkan wariyaasha madaxa banaan iyagu shilinkooda ku fiirsanaya facebook ka fiirsanaya inay lacag qaataan keliya waxaan usoo gudbinaya waxay ii soo gudbiyaan fadlan iska titira hasii sheegareynina kow labo haddaa aragtaan qof yani qori wato ama maxay ama dagaal ku jiro ama maxay ama ordayo wax video isagoo nac ka qaadanina dad badan baa arkay goobaha dagaalka tagahayo oo ayagoon wariye ahayn oo shacab ah soo duubahaya ama meel gubatay ama meel qarax ka dhacay ama meel qof gubanahaya ama meel lasii sida video ka duubaya dhibay leedahay halis bay leedahay waxaa xilligan usoo galay waxaa waaye way dhibaysaa aad bay dhibaysaa umaleyn maayo anigii idinkaba iyo dadka kale soomaalida xagga joogaba in caawa hurdo fiican aan qaadanay lama aha sababtoo dad masaakiin ah oo hurdo oo saakata waagu u baryay nabad soo toosay qutiyoonkooda soo dhacsaday oo caawa sugahayay inay seexdaan si nabad ku seexdaan ayaa xabadeen laga dulshaday marka ma dhahayo qabiil iyo degmo iyo anaa aroongii fashid waxbay ma galin qabiil aniga ana waxaan u hadlaya waa soomaalinimo magacaan wato waa midnimo we adiga iyo wiilkaana dhan oo ii wada simantiin marka cadaalada loo eego ilmaheyna qalad kuma fiirsanayo idinkana qalad kuma fiirsanayo marka waa in wixii laisku sheego wey anshax saxaafadda kale wuxuu dhigaya waxaa weeye wariyaasha in si hufan wararka usoo gudbiyaan wararkaasi waa in markaasi dhinac walbaba ay ka haystaan wararkaasi haddii aan xagga dowladda haddii aan xagga kuwa mucaaradka nuucur ha ahaado mucaaradka dowladda horjeeda ama kuwan afka duban wuxuu ha ahaado waa in warka isu dheelatiran yahay war isu dheelatiran waa inuu ahaadaa waa inaad dhexdhexaad ka ahaataa inay qabiilad ku qaada ma ahan hadda ka hor waddanka ingiriiska reesaal xukumi jiray ayaa nin ay saaxiib yihiin oo wariye ahaa ayaa mar reesaal wuxuu yiri waa in dalkeena dhibaatada macluusha dadka haysta waa in wax ka qabanaa markii wariyihii wuxuu la qabtay reesaal wuxuu ku yiri adigii waad buuran tahay aad baad cayran tahay dadkiina waxaa leedahay maxay waan caawinaynaa marka markaas reesaal wuxuu ku yiri shakhsiyadeeda wax ka sheegtay maxkamadeeda aadan oo weliba meel loo saaray ninkaas wariyaha ah marka iska ilaaliya waxyaalaha aad sheeganaysaan amaba aad dadku u sheegaysaan amaba hebel baa qof wareystay qofka hebel dhahaya muxuu yahay horta isaga ma wariye oo tv-ga qaran ku shaqeeya miya ma idaacadda ma u shaqeeyaa tv-ga u shaqeeyaa raadiye u shaqeeyaa okay bbc mise v o a da ama idaacadaha maxalliga ah whatever waxay ahaata intuu ka shaqeeyaa intaas duusan ka shaqeynin qofkaasi wariye ma aha qof kastoo camera wato oo wax dubay wariye ma ahan ani lafteeda shaki baa jirna wariyaha in kala xataa anaa shaki iga jiro anoo og yahay cad ka shaqeeyo oo ad ogtii inaan maanaa maxay barnaamij soo saare ah oo magaca wariyaha inaan sheegta rabo xataa isma hubi inaan ahay wariyaha saxda inaan ahay isma hubi sababtoo ah qofna maanaa maxay isaga isma ammaani karo oo meeshu maanaa maxay isaga jecelyaha isma gaarsiin karo ilaa ina bulshadiisa gaarsiisa maxee marka wariyaasha madaxa banaan waa in anshaxa saxaafadda ay ku dabaqaan waxyaalaha marka ay duubahayaan waa qodob aada muhiim ah waaye wariyaasha kale idaacadaha u shaqeeya ama tv-gana ha u shaqeeya ama raadiyana ha u shaqeeyaan ayadan talaan siinhayaan talaan siina waxaa waaye warar aan wakaaladaada soo gudbinin inta lacag kusoo qaata idaacadda ama tv-ga shaqaysideen oo shaatigaaga ma arkino sumcadaada ha ku ciyaarin wejiga waa baasboor wey raadiyahaas ama tv-gaasi kontan soo socda ma fadhinisid 10 sano socda inaad fadhinis lama ogo haddii ilaahay cimri dhari ku siiyo waxaa laga yaabaa in nasiib darro iyo macnabaxeed iyo dadka kale ay ku karaahsadaan oo idhaha ninkii hebel hadda ka hor warbixinta maanta noo soo gudbiyey weeye in lagu dhaho taas halis kugu jirto marka ka fiirsano ka digtoonow haddaad wariye tahay oo aad u shaqaysid tv qaran ama idaacad maxal u shaqaysid warka aad gudbinaysid ha uga faa'iidaysanin
qabiil adiga qabiilkaa kasoo horjeedo ha uga faa'iidaysanin waayo magacaa wadatid waa magac bulshada dhan ka turjumaya waayo bulshada dhan waxay ku arkaan wariyata ay ku arkaan haddaa maanta buuxo dadkii kasoo dhex warramo oo dhaho halkaas joogo qabiilkii kasoo warradaan dhaho dadka sumcadeeda waxaa waye hoos bay u dhacaysaa laakiin markaan soomaalinimo joogo oo magaca soomaalinimada aan wato oo dadka macnaa maxay wixii jecel usoo gudbiyo oo runta u sheego xaqiiqada dhabta usoo gudbiyo markaas waxaa laga yaabaa in dadkay dhahaan midnima shaarki waa gaartay laakiin still waxaan taagana aniga dadka idaacadaha ka shaqeeya tvda ka shaqeeya wararka aad lacag kusoo qaadatay faldan ha sii deeyin adarteed dambi kale waay waxay dan ku taha waxaa waaye haddii ninkan warkii uu rabay u dhihi weysid ama u sheegi weysid berituu ku dilahayaa dhibay leedahay halis wey marka mashruucii macaa maxay ahayd edib aan kuu dhahee waa soo dhamaaday dowlad baa haysanaa waxay rabto ahaato sababtoo marmarka qaarkood dowlad xun dowlad la-aan bay dhaantaa marka qofka biniaadamka ah boqolkiiba boqol qofka biniaadamka ah mauda noqon karo qof fiican oo mauda noqon karo qof walba meelu ku liitaa taas ogaada qof walba ama wariye ahaado ama sheekh ha ahaado ama madax ha ahaado ama xildhibaan ha ahaado ama dad shacab ha ahaado qof walba meel buu ku liitaa qof maanta dhihi karna ma lahan boqolkiiba boqol waa cadaaq waa qof dhihi karna ma lahan qof walba waa dhib ku filan ku haystaa waxaan kusoo koobayaa waxaa weeye qaraxyadan dhacahaya dilkan dhacahaya ama dowladda ama xabadaha ridaan ama nin sarkaal xabadaha rido ama kuwa al-shabaab meelaha soo weeraraan shacabka mar kasta waa inay dhinac uga soo wajeestaan dhowr jeer aan ka sheekeeyey fiidiyaal badan baan ka sheegay hadda kahor aan dubay waddanka hindiya mahatma gandhi markii uu tagay south africa u tagay wuxuu dareemay daltabiye ayuu dareemay waddankiisa uu kasoo laabtay wuxuu tagay hindiya ku laabtay maya south africa kasoo laabtay hindiya u tagay kacdoon waxay sameeyeen dhahay revolution oo peace ah macnaha kacdoon nabad ah ay sameeyeen 150 nin joogan ingiriis ah dadka markay arkeen dhulkii raxmaanay hooya taga waa diiwaan shacab Soomaali ay baxaan ay dhaqaaqaan ayuu isu duwan iyaga iska dhaafay xataa military tabicin karaan laakiin waa inuu doodo mid ahaada markaas haddii revolution dhacayo sida kii Iiraan ka dhacay Mercedes sagaalka camal haduusan ahayn revolution waa markaas marka qabyaalada iska dhaafa qabiil waxba imatalahayo dad badan maanta dhintay ayagoo rabay in ay arkaan in Soomaaliya nabad ay arkaan rabaan ayaa dhintay dad badan baa rabay in maanta maxay dalkoodii ay ama ku ciidaan ku samaan ama la dilay qarax baa hadda dhacay dad baa la dilay dad waxba garabsanaa ku dhimanaya marka dadkaas u duceeya ilaahna u barya qof walbana waxaad mas-uul ka tahay nabada dalka ayaa mas-uul ka tahay dowladda keliya maahan qof walba oo shacab ah oo fiidiyan daawanaya waxaad mas-uul ka tahay nabada dalka sida lagu heli lahaa aad baa idin salaamayaa meel kastoo joogtaa xilli dambe weeye wax kale ma soo gelin waxaa raba kelina intaas keliya iftiimiya ayaa rabay waana ballaaran yahay anshaxa saxaafadda meelo badan ayaa runtii u baahan in laga hadlo waryaal badan waxaa jira aqoon u leh rugcadaa ah oo saxaafado kala duwan soo shaqeeyey ayaa jiraan ay laftooda talooyinka ay qorahayaan iyo waxa ay sheegahayaan ka dhageysta waxaan kusoo koobayaa yuusuf ganaad oo wariye taqaaran ah ayaa mar hotel shamo miyamis hotel SYL la galay hotel SYL u ahaa rag lagu laayay ayuu kasoo warramayay ayuu ka hadlay waa la wareystay waxa uu yiri haddii qofka wariyaha madax banan uu dhaho xabadda halkaas ka dhaceysay halkaas waxaa ku jira hebel ninkaana qorigiista idaacadda u dhegeysan kara uu maqlayaa haddii maqlo bardo intuu u galo qofku u dila ka waran ilaadiya sheegay iyo waxaa kaloo ka hadlay meydka iyo dadka la sawiraha in la wareejiyo meelaha waxaas ma fiicno mana wanaagsano marka dad aqoon leh waa haysanaa laakiin soomaaliyana waxa waaye qabiil iyo waxbaa lagu riixayaa qofka markuu uu xil qaato qabiil waa ka tegay qaran buu isku bedelay qofka ninka sheekha marka hore waa shacab weeye qof caada waaye laakiin markuu sheekh noqdo sheekh waaye qofka wadaadka markuu wadaad noqdo waa wadaad waaye
qofku wariyaha markuu warino wariyo waayo yani qof walba taatilka uu qaata ayuu yahay kan madaxda ah markuu madaxweyne noqdo qabiilna waa ka tegay qoomiyadna uu ka tegay qaran buu noqday marka qaran iyo qoomiyad iyo macnaha iyo waxa dhan dad ma hore u sharxay maraba inaad sharx maraba inaad ku yiraahdo waqti muuye aad baan salaamayaa intii dhimatay allah u raxmado ee taabanaysa way dhibaysaa waxna kama qaban karo wuxuu ilaahay qoon cid saajin karta ma lahan aan u duceyno intay matalaan xariisto inta dhaawacana waxa way ilaahay u booqa dhayo oo dibnaaf allah u dhigo idinka aad baa maasantiin waqtiina qaali ay siisan oo walaalka qatax midnimo wadale habeen wanaagsan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh